Wajeer South 23,000 oo kilomitir oo isku wareega waa waxay ku dhadhowdahay baaxad ahaan ama la eg tahayba wadanka Djibouti deegaanka aan mathala meesha aan mathala waxay laba jeer ku soo laabmaysaa wadanka Switzerland saddex jeer waxay ku soo laabmaysaa wadanka Qatar wadanka Rwanda ay la eg tahay actually the actual size of constituency waxa weeyaan ama aqliga soo doorto wadanka Rwanda baaxadiisa intaasay la eg tahay dhulka aan mathalana dabcan aad buu u ballaaran yahay markaad u fiiriso gobolka waqooyi bari wadanka Kenya deegaanada baarlamaanka laga soo doorto asxaabtayda kale baarlamaanka igula jirto 3 ilaa 4 iyaga meel u dhigantaa horta anuu mathala Wajeer South 23,000 oo kilomitir oo isku wareega waa waxay ku dhadhowdahay baaxad ahaan ama la eg tahayba wadanka Djibouti deegaanka aan mathala meesha aan mathala waxay laba jeer ku soo laabmaysaa wadanka Switzerland saddex jeer waxay ku soo laabmaysaa wadanka Qatar wadanka Rwanda ay la eg tahay actually the actual size of constituency waxa weeyaan ama aqliga soo doorto wadanka Rwanda baaxadiisa intaasay la eg tahay dadka marka la fiiriyo cadadooda waa deegaanka ugu populationka badan gobolka waqooyi bari marka dad tiro badan oo sabool u badan oo beerkooda aan beer u helinin intooda badan maanta haddii la yiraahdo shakhsi ama reer guuraa ah oo biyo inay u helaan xoolahooda ama abaaro ay inta badan ku dhuftaan qaar badan oo kale oo abaaruhu ka laayeen xoolihii oo iyaga oo mataqaanaa aanan waxba sidan ku soo barakacay magaalooyinka iyo tuulooyinka marka dadkan u adeegaya waa dad noocaas oo kale ah maxaa yeelay waxaan isu dheelitirnayn mathalaada hal xildhibaan uu mathalaya iyo deegaanka baaxadiisa islama eko aad bay u kala ballaaran yihiin dhabtii waana tan aan leenahay hala kala jara deegaankaas sanadka dambe waxaan filaynaa in dib u habeen lagu sameeyo xuduudaha ay leeyihiin aagaga xildhibaanada baarlamaanka laga soo doortay wadanka waa muddadii 10 sano walbaba iyadoo loo fiirinaya populationka iyo baaxadda deegaanka yaa la kala maaragtay ama kuwo cusub lagu soo daraa inkastoo hadda dastuurka uu 290 dhigaya oo haddii laga badinaya ayna tahay in dastuurka la bedelo laakiin haddana mataqaanaa yani deegaanka boundariyadiisa yaa laga yaabaa inay ka soo baxaan marka la kala habeeyo siday isu qaadan karayaan iyo sida ay mataqaanaa loo dhelitira cadaalad ahaan dadka Kenya inay helaan mathalaad waafaqsan tirada dadka iyo baaxadda dhulka ma rajo xumin laakiin waa lagama maarmaan in deegaankaas isaga la kala jiro